السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي soo dhawaad channelkayga Naxyaan Somali channelka hadaa ku cusub tahay subscribe saaro beelkan oo ka dhigo si aad u noqotid daawada ugu horeysa sidoo kale video ii share garee ehelka asxaabtaada la wadaag mahadsanid. soo dhawaada maanta waxaa idin wadaa keegan aan meesha ka aragtaan sida u sameeyay iyo waxyaabay aan ka sameeyay ilaa arka insha Allah casri yaro kala iska arag soo tuurnayna ma fahanteen. soo dhawaada jikada ila gala casriya ila sameeya soo dhawaada hadee hay smartiyaynina channelka waa channelkeena ma fahanteen. ugu horeen intuu ka bilaabanaya video ma fahanteen. marka alaabta meeshan kusoo diyaarsaday maqaskaas waxaa ku jira rabaa icing sugar iyo warqada baking paper ku jiran rabaa weelkan keega rabaa inaan ku kariyo asagana waa ila arki doontaan. brushka saliida la marinaya weelka oven ku gelinayo keega qaandooyinkan waa isticmaalaya keega labadaas weel aa isticmaal rabaa ku karin rabaa ma fahanteen. marka waa soo diyaarsanaya ila socday insha Allah. kuwana iska leexleexiyay kadib weelka aan ku qasi lahaa meesha soo diyaarsaday. marka meeshan ku caana ku haysta caana booro waay laakiin caana kasto ay haysta isticmaal kartaa. intana koob saliid ku haysta saliid waay waxaan anaa saliid cada isticmaalnaa sunflower oil saliid caday hadii ay haysatid waa isticmaali kartaa. marka caagasna vanilla ay ugu jirto 5 xabo oo kuna meeshan ku haysta keeg maadaama aan rabo inaan ka dhigo 2 xabo 5 xabo oo kuna isticmaalaya. marka ila socda insha Allah. icing sugar way kan sokorta shiidan hadii ay heli karin qasab maahan sokorta caadiga inta ku qasan kartaa laakiin tan waxay ku fiican tahay dhaqsiga ku qasmee keega dhaqsiga ku qasmaa marka aad sokortan ku qasaysid. marka ukunta xabad xabada soo jabinaya xabad xabada weelka siirka ugu ridaya kadib weelka weyn ku ridaya waxa laga yaabaa hal xabo halaysan inay ku dhex jirto. marka hadii weelka direct ugu ridid kuwa fiicnaa hal xabo halaysan inay ka halaysa laga yaabaa. marka saas darteeda weelkan yarka ugu ridaya kadib ukunta wax yar qaraacaya kadib sokorta ku soo dari doona waa ila arki doontaan insha Allah. ila socday insha Allah. ukunta wax yar soo qasay kadib maxaa la dhahaa sokorta hadda jaranaya afka ka jaraya maqas xumo doqon aan soo qaatay wax ma wajaraayo midiya ku jaray. marka koob iyo wax yar ka isticmaalaya sokorta maadaama keega la wax baa ka dhigi rabo. marka ila socday insha Allah kiskisa uu soo darsanaya sokorta marka saas la ugu soo qasaya ila socday insha Allah. indina macallin idin wax la idin sharaxay ma jiraan ma fahanteen. marka soo dhawaada indhaha idin taagnaadaan ma fahanteen. sokorta koobka ku soo dhameeyay half aadna ku soo daraya half yar ku soo darsanaya. marka waxa ka sakiska uu soo darsanaya half kana 2 mar camal ku daraya waa kaasa si fiican oo soo qasaya. muhiimada keega ukunta iyo sokorta inaa si fiican u qastid waaye ukunta iyo sokorta si fiican inaa u qasto waqti aad siisid markaas maxaa la dhahaa keeg kale iska arag ku soo baxaa ma fahanteen. marka sokorta iyo ukunta qasaya si fiican inaa u qastid markuu sokorta iyo ukunta ay cadaadaan ay whipping cream oo ekaadaan camal oo ekaadaan ka diminaysa. hadii aad mashiinta heli karin haysanin gacanta ku qasan kartaa wax dhib malaan birta oo lagu walaaqo ukunta iyo waxaas ku qasaysa waa kaasa saas soo cadaadeen sokorta ukunta bis waa wax kale kuma soo darin bur kuma darin. marka vanilla had ku soo darsaday laba furka caaga oo labadiisa ku soo darsaday iyo koobka saliid had ku daray. hadii aad vanilla jeclaan heela ku darsan kartaa wax dhib malaan. marka ila socday insha Allah. dhunta yar xiran hargab miya ma aqaan koobka caanaha ku soo daray hadana soo ujeedaan koobkan weyn
koob iyo bar oo koobka shaaha lagu cabo waaye caanahan ma fahanteen koob iyo bar oo koobka shaaha lagu cabo oo koobka cad oo shaaha lagu cabo dhigta laakiin hadda saliida iigu jiray asigoo buuxo iyo haafkiisa waaye koobkan weyn oo caanaha laakiin qiyaasta keega aa qasiisid le markaas ku xiran tahay haddii aa keega yar sameynaysa camal kooba kugu filan laakiin ani keega waxaa rabaa 2 xabo inaan ka dhigo marka hal qaando oo fuul ah iska dheh oo baking powder kusoo darsay qaandada marka hore si fiican ma buuxin wax yar soo raaciyay wax yar ku daray yani hal qaando oo si fiican u buuxin iyo wax yar qaandada afkeeda hore oo baking powder ku daray adi iska dheh hal qaando oo baking powder kusoo daray kadib 2 koob oo bur waa ogaa wuu laqayaa 2 koob oo bur ah koobka saddexaadna meesha kusoo diyaarsan lacala hadaa u baahdo qoyaanka aan haystaa badan waa soo aragtay caano badan saliidii ukun badan waxaas kusoo qasay marka qoyaanka badan bur badan u qaadanaya sidaas darteeda 2 koob waa kusoo wada shubay wuu laqay waa ujeedaan Soomaan haddana koobka saddexaad kiskis uu soo daraya inuu wada qaatay inay haaf yar haduu kasoo harana waa ila arki doontaan burka marka ila soo cafan dhunta xirmayso marka hargab miyaa ma aqaan hargab dhuunta bas dadka galay madaxay ma xanuunay qandhay ma hayso wax kale ma haya dhuunta bas ay xiran xalay dhuunta ay xirmatay haddana saaka dugsiga aadaysa quraankana aanin dadku waxa ahay quraanka kor u akhriyo hoos uma akhrin kari hadaa hoos u akhriyo ma xifdinayo quraan marka cashirka marka akhrinayo kor u akhriya dhuunta way si xirmatay marka alxamdulillah hargab waxweyn ma ahan marka kana waa soo qasaya sa ujeedaan wixii dhan ku soo daray ani isla mashiinta la isticmaalaya hadii aad rabtid marka qoyaanka aad qasatid gacanta kula qasi kartaa burka laakiin ani hal mar le mashiinta uu saqay mashiinta lagu wada qasaya hal mar le mashiinta bas ku qasaya faanta waa kaasa diyaar waaye jileeciisuna waa ujeedaan keega duka adkaado asina hodhow adkaanaya marka jileec oo qiyaas ayna ka dhigtid waaye kadib waxaan soo qaadanaa weelashii warqadan oo packing paper ah soo qaatay baking paper kana rabaa inaan saaro weelkan inuu ku dhaga ka baqa maqaska maadaama oo ii jaraynin si yani saas la soo jaray warqada waxaa rabay inaan si wareega hal xabo u soo jaro ayada dhan gudaha saas ugu wareejiyo laakiin maqaskiiba wax ii jari waayay warqada iga qalqaloocmatay marka waa iska dhex saaray sideeda u dhex saaray kana bur iyo saliida marinaya kan kuma dhigay inta badan laakiin kaas inuu ku dhiga ka baqay marka warqadaas ka xijinaya kan saliid iyo bura soo mariyay kadib koobkan glaaskan biyo kusoo shubay koob maxaa la dhahaa keega waxaa rabaa midka dhexda ka daloolay inuu ii noqdo haddii aa weelka saysanin weelka dhexda ka dalool hadaa haysanin has wareerini ma fahanteen galaas guri ku yaala biyo ku shub dhex dhig weelka hodhoodii saakol oo dhexdana oo ka dalool ku noqona qurux badan waana ila arki doontaa markuu soo baxo horena soo aragtay hordhaciisa Soomaan marka waa kan qaybta kalena waa kusoo shubay weelasha waayeesayba haafayba noqdeen waxa isdheehay xataa oo kusoo hari doona umalayna waa kaas hadda ovenka geynaya ovenkan geeyo waa kasoo bixiyay adi 180 haduu yahay ovenka 180 hoos bisa ugu shidaysaa 30 daqiiqo ama 25 daqiiqo markuu hoos ugu shidmaado 10 ka soo hara kor ugu shidaysaa keega intaas leeyahay ma fahanteen marka kan sidan quruxda badan ku soo baxay galaaska waa ka bixiyay marka ovenka soo bixiyay galaaska ku dhex jiray waa ka bixiyay keega galaaska ku dhex jiray waa ka bixiyay waa kaas sidaas quruxda badan oo ku soo baxay saanaan ka rabay dhaxda inuu dalool yeesho haddana waa kana waa ka bixiyay yani weelkii waa furay sidaas quruxda badan oo ku soo baxay kii dheeraayna waa kaas slice ka ahaa slice-kana waa kana weelasha way waaweynay haafay noqdeen sida soo aragteen laakiin dib ma lahan ani waxa isdhaay weelasha keega soo hari doono weelasha way isireenba aad ay waaweynayeenba haafay noqdeen marka kaasaas quruxda badan oo soo baxay dhaxdiisana waa ka soo ujeedaan soo soo baxay kor iyo hoos soo gaduudan yahay ada hoos bas uga shidid dabkan dhexdhexaad u geysid kor iyo hoos uga shida markay soo gaduudato hoos bisa uga shida yani marka keega gelisid hoos bisa uga shida markuu soo fuuro oo soo gaduudanaay keega oo 10 daqiiqo amal ka harsan yahay inuu bislaado kor uga shidaysa marka waa kaasa kii slice-kan dhaxdiisa waa kaasa loo jeedan Soomaan ما شاء الله تبارك الرحمن sidaas quruxda badan ku soo baxay
كفايدست إن شاء الله فيديو حقيس هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.